agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirashiid Axmed Guure weeriyo barasaabka gobolka Gabiley Yuusuf Ibrahim Geed iyo maayarka magaalada Gabiley Tahay Maxamed Muuse ayaa maanta soo gabagabeeyay kulan aqooneed laga hadlayay qorshaha 3 sano horumarinta gobolka Gabiley ee soo socda kulankaasi oo goobjoog ka ahayeen maayarada kala duwan ee shanta degmada gobolka Gabiley oo ka mid yahay maayarka degmada Arabsi iyo maayarka degmada Agabar iyo maayarka degmada Togwa Jaale maayarka degmada Geedbalaar iyo maayarka degmada Alay baday iyo mas'uuliyiin kale oo kala socday hay'adaha kala duwan ee gobolka Gabiley ayaa la isla gorfeeyay qorshayaasha ajandaha horumarinta gobolka ee 3 sano soo socda iyagoo laga soo saari doono qorshe midaysan oo lagu horumariyo gobolka Gabiley barasaabka gobolka Gabiley Yuusuf Ibrahim Geed iyo wariye maayarka magaalada Gabiley Tahay Maxamed Muuse oo halkaasi ugu horeynba hadalkooda ka jeediyay ayaa ku nuuxnuuxsaday horumarinta qorshaha cad ee guud ahaanba laga wada qayb qaadan doono ee laga soo saarayo horumarinta gobolka diyaarinta qorshaha 3 sano ee gobolka Gabiley insha Allah taala sida ay u bilaabantay bay kulli u socon doontaa waxa maanta inoo soo gabagabeeyay qorshihii waxqabadka 3 sano ama baahiyaha jira 3 sano ee soo socda aynu u soo gudbinay wasaaradda qorsheynta kulli waxaas bay tahay in sida maanta ay tahay in aynu hawlaha u wada wadana hadii la hayraado agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirashiid Axmed Guule oo ismaalkoon halkaasi ka jeediyay ayaa ballan qaaday in kulanada noocan oo kale noqon doonaan kuwa istaba joog isla markaasina laga arsanayo qorshaha horumarinta gobolka guud ahaan Gabiley iyo degmooyinka kala duwan ee hoos yimaadeen isla markaana waxaan ku rajaynahay inaynu soo saarno oo aad soo saartaan qorshe gobol oo 3 sano hadii la yiraahdo ayaynu ku rajaynahay aad baad ugu mahadsantihiin 3 maalmood aad ugu dhawaar adeegteen aad wax badan aad ugu soo kordhiseen sidii aad gobolka aad ka soo jeedaan dhamaantiinba ama aad mas'uul ka tihiin dhamaantiinba aad u soo saar lahaydeen qorshe uu leeyahay oo gobolka uu leeyahay qorshahan gobolku waxa weeyaan waa bilow hadda waa socon doona inta la diyaarinayo hawshiisa lagu jiro waa furan yahay emailkii waa haysataan waa soo gudbinaysaan markasta waa Nimcadeeg Ibrahim iyo Mixiidiin Maxamed Daahir TV qaranka Gabiley.